munaasabad ku saabsaneed sanad guurada xisbiga dulmidiid ayaa lagu qabtay caasimadda waddanka Sweden. warbixin warkan la xiriirtay waxa waddankaasi inoogu soo diray Salwo. munaasabad aad loo soo agaasimay oo lagu maamusayay sanad guuradii ka soo wareegatay xisbiga dulmidiid ayaa waxa lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. munaasabadiina sidan ayay gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa oo maanta farxad gaar ah noo sii ah runtii inaanu sidaan maanta aan u wada joogno oo aan isugu jirno macaljabadeedii ONLF iyo dulmidiid iyo shacab badan oo kala duwan baarlamaanka awal hore umeyna wada joogi jirin saas si labadan maanta dhulkayga u wada joognaa oo ay farxad inoo tahay taa inaynu noo noqoto mid mira dhasha oo walaalowda oo xoogeysata oo laga faa'iideysto fursadan maanta inoo iftintay aynu haysano oo aan la baylihin oo la adkaysto oo gacmaha si fiican isu qabsado taa inaynu ku fikirno oo xoojino taas aad iyo aad dadka soo dhaweynaya gaar ahaan jabhadda ONLF oo qayb weyn ka qaadatay halgankii dheeraa aad ogeedeen maanta mid baynu wada nahay hal baynu wada nahay aad baa idin salaamayaa soo dhawaada hadafka iyo ujeedada xisbiga dulmidiid mudane khadar jigre aadan dhammaantiin waan salaamay marka ugu horeysa waxaa mahad iskale ilaahayga caawa meesha suu keenay inagoo Soomaali oo dhan ah oo aan qabiil ahayn urur gooni aan ahayn ama group gooni aan ahayn marka waa ilaahay mahadii marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii soo abaabushay xafladan kulli anagu marti baan nahay North American idinka nimid marka dhalinyaradii waxaan leeyahay hawl fiican baad qabateen khayr Allah idin siiyo soo tago dulmidiid hadafka uu taagan yahay iyo kii uu taagnaa labadaba isku mid weeye waxa weeyaan sinaan cadaalad iyo ummadda Soomaaliyeed in la mideeyo iyadoon loo eegayn qabiil iyadoon loo eegayn gobol gooniya ama group gooniya tii baanu maantana u taagannahay halgankii la soo galay oo maaragtay dad badan oo Soomaaliyeed ay nooga horeeyeen oo ay kow ka yihiin jabhadda xoreynta Ogaadenya ama ONLF oo runtii muddo hadda ku dhow maaragtay 22 sano 27 sano ku dhow 25 sano filayaa u dagaalamayay sidii xuquuqda ummadda Soomaaliyeed maaragtay loo sugi lahaa sharafteeda iyo karaamadeedina loo soo celin lahaa iyagana mahad baan u haynaa dadkii sida nabadda ah u dagaalamayay maaragtay isku dayay in laga dulqaado cadawgii ummadda Soomaaliyeed oo runtii ku shaqeynayay fikir shisheeye rag iyo dumar dadkii nagu taageeray halgankaas iyagana mahad baan u haynaa marka koobaad inaan u hambaliyeeyo oon leeyahay sanad guuro wanaagsan jira oo jooga xisbiga dulmidiid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shakhsiyaad aad iyo aad runtii iigu weyn aniga Ragaale Xamed Axmed baa la yiraahdaa ONLF baan ka tirsanahay odayaasheeda Ethiopia wada hadal baan galnay wada hadalkii wuxuu keenay in aan wax ku heshiino ma xiroonin ismana dhiibin waddankayagii baan galnay ku jirnaa ka hawlgalaynaa wadadii qoriga wada ka duwan baan qaadanay dala noqotay oo ah in aan si nabada aan waxa aan doonayno iyo xorriyadayada iyo xuquuqdeeda inaan ku raadino dulmidiid ay ku cadaysay kolley aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan hadda mashraxa ku soo dhaweynayaa wada shaqeynta maamulka Somali State xisbiga talada haya iyo federaalka afhayeen Bashiir Garaad oo ah maskaxda dulmidiid amba aqoon-yahanka dulmidiid السلام عليكم هذا inaan u mahad celiyo aasaasayashii sanad ka hor halka yimid
iyagoo intooda badan ka yimaadeen wadankan aan ahayn isugu yimid albaabka isku soo xidhay ee telefoonada iska damiyey ee go'aamiye yidhi waxaan rabnaa ajendaheenu yahay inaan dulmiga diidno deegaanka ku habsaday daruurtan aan qaadaynin ee dulmiga ahaa inaan diidno dejiyeyna nashqad hindisayna qaabkii loola dagaalami lahaa ay tahay dulmidiid meeshii lagu aasaasay haddana uu isagoo xisbi isku bedelay caawa idinla joogo waxaan rajaynayaa inaad taageerayaal fiican u noqonaysaan sidaad waqtigii aad ugu ahaydeen registrationkii diiwaangelintii xisbigana uu bilaami doono hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa ilaahay ha idinka raalli ahaado ilaahay ha idin xafido wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الصحفي سلوى مقالة ستوكهولم دالك سويدن